aniga iyo marwadeyduba cabdidhaanta wuu fiiriyey habartina la fiirna habarta aadaamadu iska baxadna qaado baloog subadi ku qashay was baloog qaado tag waa dareemi karaa cabdidhaanto waxa sidaa dhan oga xanaajinaya waxa ay tahay in la yiraahdo waxaad u eg tahay nin marwadiis waxa u ekaatay nin dhan xaaskiisa u ekaatay aad bay xanuun badan tahay adoo markii hore waxyaabo badan lagu waxman jiray السلام عليكم صاحب يا الملك ساعة وقتان شكو سو مقال كي جدين سو قارية بحلقة قداوة نسان وشانك شاع شاكر لكن شاع شاكر كسو دوادا برنامج كذا انت بلشدة هذيك وهاي aniga iyo marwadeyduba واتا صاحب يا لتنا برنامج كي قلين فضل سبسكرايب صار شانك كي سو كله لا يدع مقال كان واتا سومالي دو حايت هذا ديبيغا غورا ويشو هكو قسقات مساعة غورا ويشو هكو قسقات ما انتو ايقا مقنتها وهي مقال ان اد وقسلا اركي adigan idaawanaya hadii aad muuqaalkan daawato waan hubaa hadda kadib iskuma day doontiin aad soo dhaweysid fanaan wariye madaxweyne ra'iisul wasaare hadii aad soo dhaweysidna waxaad noqon doontaa mid iska ilaaliya inuu la kulmo xaaladan oo kale aniga iyo marwadeyduba waxaan u nimanaa caleema saarka madaxweynaha aad bay waxaan badan tahay waa ninkii fanaankii weynaa ee xamar xoreystay oo caan la ahaay cabdi dhaanto oo runtii aad u xanaaqay kadib markii ciyaal TikTok ay farq qaldan ka soo qabteen hadaba cabdi dhaanto maxaa ku dhacay habartina la fiirna war hadii wax la fiir wuu fiiri war miya cabdi dhaanto wuxuu toddobaadkii tagay ka qayb qaatay soo dhaweynta fanaanka weyn ee Cawaale Aadan taa oo si weyn oo qurux badan oo muggeed lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho xilli uu isku diyaarinay inuu ka qayb qaato caleema saarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud muddadii lagu guda jiray in la soo dhaweeyay Cawaale Aadan ayaa meega la siiyay si uu uga hadlo soo dhaweynta balaaran loo sameeyay cabdi dhaantana wuxuu kamid ahaa saaxiibadii sida dhow halkaasi aga warhayay inuu imaanayo isla markaana garabka aga jiray garab taagnaa balse Cawaale markii uu soo dhaweynta ka hadlayay maxaa dhacay maxay ciyaal TikTok ka soo qabteen aniga iyo marwadeyduba waxaan u nimanaa caleema saarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo aan kow barka kuwad hambalyeeyo sababta aan soo dhaweyn jiray weligeedii Allaah baa la soo dhaweyn jiray ciyaal TikTok ilaahay kama adeejiyo waxa jooga TikTok dhalinyaro ay shaqadoodu tahaba in maradii dhacdaba ay kaamira qaldan ama faar qaldan ay ku soo qabtaan cabdi dhaanto ay kaamiraha qarsoon qabteen isagoo aad u xanaaqay kadib markii Cawaale Aadan oo garabkiisa ka fiiriyay isagoo dhahaya aniga iyo marwadeedaba sida noo soo dhaweeyeen oo ku maasantiin dadna cabdi dhaanto ayaa isku naxay markii dhinaciisa baash la soo fiirshay muuqaalkaas ayaa noqday muuqaalkii ugu saameynta badnaa toddobaadkii aan soo dhaafnay baraha bulshada ayuu si ba'an u gelgelay dadna waxay keentay in cabdi dhaanto markii dambe loo yeero oo la yiraahdo wareede Cawaale Aadan muxuu ka hadda Cawaale Aadan muxuu ka damacsanaa maxaaskiisa ayaad u ekaatay ninkii cabdi dhaanto ahaa xalay TikTok lagama seexan xanaaq buu isagana afka furtay sababta aan soo dhaweyn jiray weligeedii Allaah baa la soo dhaweyn jiray hadduu xitaa hadalka la yiraahdo kama amaynan ahayn hadal dadkii loogu talagalay oo meesha joogay ama loola jeeday ay taagnaayeen bay maxaa sababay in aniga inta la jaro la cabdi dhaanto wuu fiiriyey habartina la fiirna war hadii wax la fiir wuu fiiri war miya habarta aadaamadu iska baxadna qaado baloog subadi ku qashay was baloog qaado tag waa dareemi karaa cabdi dhaanto waxa sidaa dhan oga xanaajinaya waxa ay tahay in la yiraahdo waxaad u eg tahay nin marwadiis waxa u ekaatay nin dhan xaaskiisa u ekaatay aad bay xanuun badan tahay adoo markii hore waxyaabo badan lagu waxman jiray ninka ragga wax badan u dul qaadan karaa in la yiraahdo u dul qaadan karaa waxa tahay qof sawir ah waxa tahay qof dhaadhaan ah waxa tahay qof macnaha aan aqli badnayn waxyaabahaas oo dhan adii lagu kaftamo waa caadi laakiin in la yiraahdo gabar baa u ekaatay oo waliba gabar ma ahane nin baa marwadiis kugu qalday macnaha waa isku ekaateen labadiina waa isku ekaateen yani wax oo qaadan kara ma ah wuuna ku saxsanaa inuu 100% isdifaaco laakiin halka maxaa kaga baxay waxa aniga adiga nooga baxa waxay tahay anu hore oo si ogaaba noloshayda intii aan meediyaha ama wax ku jira warbaahinta ama meediyaba ka hadlayay hal mar bas waxaan jeclahay inaan meel dad lagu soo dhaweynaa aan tagay bas halkaas habeen baa aniga horta cashir ka qaatay habeenka wax kala ma ahayn dhalinyaro YouTuber aniga YouTube ka xiliya si fiican u isticmaalin baa waxay ugu dhaheen
waxaan soo dhaweynaynaa fanaanka dalmar yare deetana fanaanka dalmar yare imaanayay markii waa baxnay kaamirooyin waxbaan wadinay markaana si fiican youtube-ka xilliga bilaabay si fiican uga jirin dalmarna wuxuu iska ahaa fanaaniinta iska jeclaayo dilajan waay dalmar linkaga sheekeymayo deetana airportkii baan tagnay magaalada markaa lagu soo dhaweynayo haddaan rabin in magaceeda ku dhawaaqo waa la bisanay waqti badanaa hurnay waa sii daynay baabuur baan shidaal ku shubanay waa sii daynay adiga garoonkiyaa tagnay deetana dalmar baa soo degay saasti uu dalmar u soo degay baa hal mar waaba la isbuurtaba waxaa meesha dhooban youtuber qof aan waxba loo dirsan yacni dalmar baa imaanaya la yidhi waxaa meesha isugu jira imaanaya meesha wax views raadinaya mid dalmar saaxiibadood ah oo dad isku dhow yihiin waxaan xasuustaa xitaa habeenka DJ Subeer baa airportka joogay deetana waxaa dhacday markii dalmar meel uu istaaga waayay camera inta laga gelinayo dadkii isbuuranayaan uu kala garan waayay dadkii isaga u yimid iyo dadka meesha yimidba adi ninka odaga waa loo kacay si aan caadi loo kacay DJ Subeer baa xitaa isagoo shaatiga ilaashanaya wuxuu waayay heer uu xitaa ninka salaamo ama meel buu usoo muro waayay markaabuu meel xagga inta istaagayo markii dambe wuxuu usoo diray qof in ilaa uu dalmar yiraahdo maxaa DJ Subeer ka qaldamo halkan igu imaado maxaa qaldama deetan laga dhaco leeyahay ninka meel buu ku soo maray leeyahay fadhigiisu ugu tag oo isagoo carara inta ka dawado halka uu warday waxa isbuuranaya dadka maalinka marka 10 badan baa ay baxay meel dadkii ay isku dhawaaba iska warqab waayeen in waxta dalmar tii yimaado DJ Subeer yacni inuu soo dhaweynayo uu ogaay uu tabi waayo wareero oo gaarsiiyay heer ah meel isku buuranayo meel ma macna waxba laga helin meel waan qiimeeyay waxa isir war dadkan soo dhaweeyay qofkii loo yeerto waa caadi laakiin qofka sidoo kale aniga ay wacala camal ahay iska soo orday ama youtuber ahaa ama qof kale ahaa aad bay horta u dhib badan tahay meelaha inta badan soo dhaweynta ama dadka lagu soo dhaweynayana ana waaba ka didaaba xilliga wixii ka dambeeyay qofka ama isnaqaano ama aan isaqoon soo dhaweyn meel oo ka jirto ana ma jecli baan inta laga hor imaado laga soo horboodo magaalada wax jecel hadaan meel ka tagay tartiibteeda dalaq iska dhaho hadaan meel ka soo baxayaan tartiibteeda iska soo galo macnaha jawigaas waa habi waa macaan hadii lagu soo dhaweeyna dabcan qarash baa horeysa lacag baa ka baxaysa dad baa shidaal shaxaad waxa lagu diinaa hadii aad wax soo dhaweysan sidoo kale shidaal iyo qarac baa ka baxaysa يعني وحنا كومي سو كوردينيسو بامسا يعني ما انت ما ديغا مدحوينه متيد رئيسل وزراء متيد سو دوينتادو اما فنان اها وما كي اها ولي فنان كان فايده كل wax laga shooy wax doo qabsan wax kale laakiin adi wax faa'iido ah ku leeyahay ma jirto faar qaldan in laga soo qabto ma ahane faa'iido kale oo horta aad helaysaa haba yaraatay ma jirto marka inta ay sida cad dhaanto kugu dhici lahayd oo lagu dhigi lahaa marwadeeda ila socoto lagu dhigi lahaa oo aad baraa bulshada qeyladaanta nafta ka dhici lahayd waliba cabdi dhaanto waxa aaminsan asaga laga gardareeyahay waayo aaminsan in li iimaawni meesha adaa ii joogay wadankii kala kici waan aaminsan waayo waa nin mas'uul oo muqdisho markii la yiraahdo dadka soo dhaweeya waxa ugu horbooda nin ma wacda ma ahayn laakiin dadka kale ee meesha iska tagi doona oo sida cabdi dhaanto kale in ku dhicina waxa idin leeyahay iska ilaaliya oo dadka yaa wacday meelaha ama xafladooyinka ama fagaara dhowr jeer ku soo celiyay iska wardiyay oo batatan banaanka istaagay aad baa u mahadsantahay daawashada muuqaalka shacshir saayo qad bixsan